السلام عليكم magacaygu waa Cabdinaasir Safana waxaan rabaa maanta inaan idin la wadaago 6 hab oo aad waqtigaaga ku maareyn karto si aad u qabato hawl waxtar leh waqti kooban ma ahan mid aan halkan ku soo koobi karo muhiimadda uu waqtigu leeyahay ha yeeshee inta jeer ee eebbe ku dhaarto waqtiga quraanka dhexdiisa ayaa dhab ahaan inoogu filan waxaa jira kumanaan hab oo lagu maareeyo waqtiga kuwaas oo ay dejiyeen khubaro takhasus u leh waqtiga iyo maareyntiisa ha yeeshee aan kula wadaago 6 hab oo aan aniga ka soo xushay hababkaas oo aad ku maamuli karto waqtigaaga kuwaas oo aan filayo inay ka joojiyaan kawahsiga howlahaaga shakhsi iyo midda horumarineed haddaba ka fikir midkee ayaad u malaynaysaa inuu yahay kan ugu waxtarka badan xaaladda aad hadda ku sugan tahay habka ugu horeeya ku qor warqad wax walba aad doonayso inaad qabato si hor u dhac ah qor dhammaan tilaabooyinka aad doonayso inaad qaado si aad hawshaada ugu guulaysato maxaa yeelay inaad howlahaaga aad si hor u dhac aad u soo diyaarsato ama aad u soo qorato waxay kaa caawinaysaa in hawshaada kuu fududaato marka aad sidaas samayso kadib waxaad si fudud ku raaci kartaa tilaabooyinkii aad horay u soo qorshaysay ilaa aad hawshaada ka dhammaystirayso kasoo horjeedka taas haddii aad waxba soo diyaarsan dabeedna aad dalaq iska tiraa hawsha shaki kuma jiro inaad ku wareerayso ama aad ku caajisayso ugu dambaynna aad madaxa gacmaha qabsanaysid 2 si dhammaystiran ugu diyaargarow hawl walba qabashadeeda marka aad bilaabayso hawl kasta iska hubi inaad haysato dhammaan agabkii iyo adeegii aad u baahnayd inta hawshaasi socoto maxaa yeelay taasi waxay kaa caawinaysaa inaadan wax raadin inta aad hawshaas ku guda jirto si uusan waqti kaaga lumin inaad si dhammaystiran isugu diyaariso waxay ku siinaysaa dhiirigelin aad u sarraysa taasoo kaa caawinaysa inaad hawshaada si fudud ku gudato ilaa aad ka dhammaynayso 3 qaad tilaabo yar si aad ugu tilaabsato 10 tilaabo kale sida uu yiri Confucius filosofkii Shiineeska ahaa safar kun tilaabo ah wuxuu ka bilowdaa hal tilaabo marka aad qaado tilaabada ugu horeysa ee hawl ka hortaal waxaad dareemaysaa xamaasad kugu xoojinaysa inaad u sii xarqooto tilaabooyinka xiga ee hawshaas ha degdegin si aad u gaarto tilaabada ugu dambaysa waxaa waajib kuga ah inaad cagta soo mariso inta ka horeysa taasna waxay u baahan tahay dabcan dulqaad badan xasuusno mar kale safar kun tilaabo ah wuxuu ka bilowdaa hal tilaabo mid kalena waxay lahayd Rooma maalin qura laguma dhisin 4 isticmaal habka lagu magacaabo salami slice si kala hadan Soomaali ahaan ugu sii sarifo hal qaniyo ayaa qaybo badan lagu dhameyn karaa aan si kala fandhicilay sida adigaba aadan marna isku dayin inaad xabad rooti mar qura afka wada geliso cabsi aad ka qabto inuu cunaha ku istaago dartii ha isku dayin inaad hawl kastaba aad bilowga hore tiraa aan dhamaystiro waa intaas aad ku habowda howluhuna ka kala daataan waxa si aad u haboon inaad qayb waliba qiyaasteeda iyo qorshaheeda ku qabato sida aad rootigaba aad marba jab u goosanaysid si aad u dhamayso ayaad hawshaadan ku dhamayn kartaa si la mid ah qayb marka aad doorato qayb ka mid ah shaqadaada dulqaadna aad muujiso inta aad ka dhamaystirayso waxay ku siinaysaa dhiiranaan ah inaad sii qabato qaybaha kale ee ku haray 5 si hawl waliba waqti cayiman hawl kasta aad qabanayso isku day intaadan bilaabin inaad u cayinto waqti go'an oo aad hawshaas ku dhamaynayso ama aad ku dhaweynayso tusaale ahaan haddii aad wax aqrinayso ama aad qorayso isku day inaad u qorsheyso saacad ama 2 ama ka badan intii markaasi aad awoodo waxay taasi keeni kartaa in maskaxdaadu u diyaar garowdo halka saacaad u qorsheysay duubsiguna ka yaraado bedelkii aad si furan aan xadidnayn hawl u qaban lahayd taasoo ugu dambayn keeni karta natiijo aan nafci lahayn 6 qabo marka hore hawsha kuugu warwarka badan ama saameyn taban yeelan karta haddii aadan qaban hawl kasta waxay leedahay qaybo carqalado badan oo ka duwan qaybaha kale marka aad dhamaystirto qaybtaas kugu walaaca badan waxaa kuu fududaanaya in inta kuu harsan aad si fudud ku qabato kaana yaraado warwarka iyo walaaca sidaa daraadeed hubi qaybaha kugu culayska iyo walaaca badan kuna day inaad marka hore iyadu meelayso aan soo gunaanaday intaadan iloobin intaadan bilaabin hawl kasta ku sawir maskaxdaada hawshaada sida ay noqon lahayd marka aad si qurux badan u dhamaystirto taasi waxay ku siinaysaa yididiilo iyo dareen kugu riixaya inaad gaarto guushaas xasuusnow haddii aad doonayso inaad mustaqbalka wax ka bedesho hadda samee ficil haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan u riyaaq ama like saar lana wadaag asxaabtaada sidoo kale ka fikir inaad subscribe dhahdo kanaalkan si aad u hesho isbuuc kasta tilaabooyin ama qodobo wax badan ka bedelaya noloshaada insha Allah mahadsanid